Assalaamu calaykum. Saameyn intee leeg ayay ku leedahay qoyska waalidaan isku waafaqsaneen habka barbaarinta iyo tarbiyada carruurta. Videogan insha Allah waxaan uga hadli doonaa saameynta ka imaan karta ama khatarta ay leedahay waalidaan isku waafaqsaneen habka barbaarinta iyo tarbiyada carruurta iyo sidii looga hortagi lahaa ama lagu xalin lahaa. Soo dhawaada, magacaygu waa Sucaad. Waxaan soo bartay barbaarinta carruurta. Waxaan la shaqeeyaa familada iyo dadka u baahan la talinta. Please videoga haddaa ka heshid la share garay waana like tana saar. Thank you so much ay soo dhaweyseen. Kala duwanaashada labada waalid saameynta ka imaan karta dhanka ilmaha waxaa ka mid ah khaasatan ilmaha markay yar yihiin in cunuga uu ku wareero fahmidda wixii sax ah wixii khalad ah. Tusaale, waalidiintii aan ka soo hadalnay videogii hore ahaa waalid oo jecel cunuga markuu qalad galo inuu qalad ku qabto hadduu yahay midna yahay waalid oo jecleen cunuga in la dhibo mise cunuga in qaladaadiisa la saxo. waxaa ka imaan kara cunuga for example markuu yar yahay oo kursi ku badboodo waalid intuu u arko kursiga badbooditaanka inay khalad tahay oo cunuga uu ku garaaco mise uu ka celiyo waalidka kaleetana oo markiisa u fasaxa because wuxuu aaminsan yahay in badbooditaanka kursiga cunuga oo ilmo yahay oo ka weynaanaya. waxaa taas ay keenay marka cunuga inay dhib ku noqoto fahmidda waxaan badbooditaanka kursiga uu sameynayo inay qalad tahay inay sax tahay. taas oo marka laga yaabo cunuga inuu ku laalaabto isla qaladkii oo sameeyo marar badan si ay ku qaadato waqti dheeraad inuu u fahmo wixii qalad ah wixii sax ah. saameynta labaad ee ku yeelan karta carruurta waxaa waaye inay special ilmaha xoogaa markay soo weynaadaan ay kala fahmaan waalidna waalid jilicsan inuu yahay wax uu dhinkooda oo soo rabo u sameynayo waalidna xoogaha ayna isfahmaynin. taasoo keenta marka cunuga inuu advantage ka qaato relationshipkaas oo waalidka jilicsan dhankiisa u bato oo waalidka jilicsan waxyaabo rabo oo ka dhamaysto oo taas waalidkaasna soo ugu doonaynaa cunuga ay sometimes inay cunuga waxyaabo ku habooneen inay u ogolaadaan iyagoo isla waalidka cunugan u naxariiso maadaama aabihiisa uu khalifsan yahay mise maadaama aabihiisa isaga isfahmaynin inay isleedahay maamada waxaa laga yaabaa adiga dhexdhexaadi adiga cunuga u roonaaw waxyaabo khatar especially cunuga markuu teenager ku noqdo waxyaabo oo saameyn weyn oo musuxmaan kala kasii gaari karta inay ka imaado taasoona keenaya khilaafka oo labada waalid u dhexeeya dhanka tarbiyada. waxaa kaloo markaa ka imaan karo in mar walba labada cunuga iyo waalidka mar walba isfahansaneen muran dhexdooda ka imaado oo cunugaasna markay labada isagii waalidka murmaan oo waalidka kala soo geliyo oo marka taasoo haddana lili karto in labada waalid cunuga hortiisa ay ku murmaan which also iyadana saameyn weyn ku sameyn karto dhanka cunuga ixtiraamka waalidiintiisa u hayn lahaa markuu arko labada waalid oo hortiisa ku murmayaan iyo waalidka oo waxa ka celinaya cunuga waxaa dhib ku noqonaya marka waalidkaas inuu saameyn weyn ku lahaado nolosha cunugaas because cunugaas wuxuu arkaa waalidkan waalid khalafsan waalid xun waalid aan jecleen marka relationshipkii dhan cunugan iyo waalidkaas meesha ka baxay taasoo marka saameyn weyn ku noqon karto cunugaas developmentigiisa iyo tarbiyadiisa iyo akhlaaqdiisa. dhanka waalidka haddaa ugu gudubno saameynta ay ku yeelanaya waxaa ka mid ah labada waalid inay badanaa ay isku khilaafaan mise ay ku murmaan habka tarbiyada carruurta iyo akhlaaqdooda taasoo marka ay saameyso in labada waalid ay ka hadalitaanka iyo ka tashiga sida loo barbaarin lahaa carruurta iyo mustaqbalkooda inay dhib ku noqoto ay badanaa labadooda ayna ka wada hadlin sida ay ilmaha wixii la bari lahaa iyo wixii akhlaaqi lagu soo zaa'idin lahaa ay waalidba qof walba oo aragtidiisa maadaama ay kala duwan yihiin badanaa waxaa saamaysa inayna ka hadlin marka ayna ka hadlin iyagoo ka baqaaya mise ayna avoid garaynaya khilaafka u dhexeeyo taasoo marka ay saameyn karto relationshipkooda inay distant noqdaan ayna xiriirkooda oo kala fogaadaan. waxaa kaloo marka ay saameynaya badanaa la arkaa in waalid markuu arko waalid inuu aabaha mise badanaa aabaha tusaale aan soo qaadanaya in waalid markuu laga yaabo hooyada markay aragtay aabaha inuu cunuga dhibaysa aabahadan tusaalihii hore aan soo qaatay inay iyada isdhahdo marka maadaama cunugan aabihiisa dhibaayo mise maadaama cunugan aabihiisa la jooginba mise aabihiisa yahay jooge maqane uninvolved parent inay iyada isdhahdo booska buuxi iyo cunugan ay more extra nice u noqoto oo marka cunugan iyada intee ay sii lahayd isdhahaysa booska buuxi ay sii dhumayso cunuga taasaa saameyntaasa oo soo dhici karto. waxaa kaloo ugu dambeeya oo inta hadda maanta uga hadlaya waxaa ka mid ah waxaa kaloo also saameynta kale ay ku lahaa karto waxaa ka mid ah
inay waalidka oo kala duwanaanshadaas isoo ilaalinayo oo isdhaha adiga cuniga dhaha ka qari haddii like wax la jabiyo oo kale hooyaha u sheegin oo aabbaha u sheegin mise waalid u isticmaalo waalidka kale oo dhaha aabada oo imaadaan kugu sheega aabada waa lagu garaaca or something like that yani oo waalidka kale ku hadido maadaama ay laga yaabo maamada iyada inay garaaci karin ilmaha mise ayna rabin inay garaacdo mise laakiin ay isticmaasho waalidka kale ay ku hadido cuniga taasoo marka cuniga ay sii fogeysiinay isaga iyo waalidka xiriirkiisa so intaasaa saameyn iyo waxyaabo ka badanaa jira laakiin intaasaa maanta aan jeclaysan inaan kusoo koobo videogan waxaa marka aan ka hadlaynaa sida looga hortagi lahaa cuquubooyinkan iyo sida lagu xalin lahaa waxaa ka mid ah marka sida looga hortagi lahaa in labada waalid isku laabtaan laga hadlo qof walbaba guriga lagu soo barbaariyay iyo saameynta ay ku leedahay barbaarintiisa oo meeshuu ka imaaday inuu waalid wax cunug fiican ma rabin karo mana barbaari karo asoona tiisa isku laaban oona fahmin barbaarintii lagu soo barbaariyay saameynta ay ku leedahay iyo wuxuu rabo inuu ka qaata iyo wuxuu rabo inuu ka tago taas marka labada waalid ay meel isla dhigaan ay fahmaan waxaa kaloo fiican in marka family rules la sameeyo waxyaabo laisku ogyahay oo laga tashto waxyaabaha laisku ogyahay oo muhiimka ah laga tashto oo rule loo sameeyo sida cuniga expectationka laga raba iyo wixii lagu ciqaabi lahaa mise wixii oo consequence looga dhigi lahaa haddoona sameyn taasaa marka ta labaad looga hortagi karaa khilaafka tan saddexaad waxaa waaye in la ogaado khilaafkii haddaba jiro guriga ka jiro oo soo lalaawanayo haddii hal waalid iyo hal cunug badanaa muran dhexdooda ka taagan yahay ee mar walba isqabsadaan waxaa marka muhiim ah in la ogaado cunigan iyo waalidkan maxaa waaye problemka mar walba soo lalaabto seena loo xalin karaa soo muranka markaan taagan mise khilaafka haddaba jiro in dib loogu laabto oo lasla dhigo meel sida loo xalin lahaa khilaafkan iyo wixii consequences ahaan lahaa sidii loo yareeyo dhibaatada jirto intaas marka la sameeyo waxaa muhiim ah marka labada waalid inay ku tashtaan in waalid kasta waalidka kala suuro fiican ka bixiyo cunug hortiisa in ilmaha hortooda lagu murmin in qof walba isku dayo markuu qofka kale ka hadlaayo sawir fiican ka bixiyo si ixtiraamka ilmaha u hayaan labada waalid oo u zaa'ido in labada waalid markay rabaan inay kala hadlaan khilaafkooda ila khilaaf wuu jiraa mugtahay khilaafkooda in cunuga hortiisa looga hadlin laakiin keligooda iyagoo ay ka hadlaan wixii khilaaf ah iyo sida looga hortagi lahaa qof walba wixii uu rabo inuu iska bedelo laisku caawiyo marka labada waalid waxaa muhiim ah inay iscaawiyaan ayna isku samraan ayna ogaadaan qof walba inuu kala duwan yahay aan laba qof isku mid maqnaqan karaan laakiin waxaa muhiim ah in lasla wada shaqeeyo oo cuniga unity la tuso hal meel laga soo jeesto oo arka labadan waalid in hal mowqif yihiin way kala duwnaan karaan afkaartooda iyo dariiqadooda laakiin waxaa muhiim ah cunuga inay ogaadaan inay labadan waalid hal yihiin ay hal mabda iyo hal ruul iyo hal hadaf ilmahan u hayaan si ay taas yarayso cuniga inuu ka faa'iidaysto labada waalid dhexdooda ayna u tusto cuniga laba waalid oo foojigsan oo labadoodaba hal hadaf iyo hal mabda ku socdo oo natiijadoona tahay cunug fiican inay soo saaraan taasaa muhiim ah insha allah videogan haddaa ka faa'iideen please la share gareeya dadka وانا لايك نو سارة وانا سبسكرايب تنو كدر بإذن الله thank you so much جزاكم الله خير